السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا نسلمي دمان والله ميلو باتيوكتان وأنا وهولاشين سمي محمد يوتيوب channel داونيسيدنا oo sumay daacad ku soo dhahda ku cusub tahay subscribe share marka la isku soo noqod wanaagsan awalan bish barkaysan ee Ramadan ay gabagab inoo maraysa runtii sanadkan speed inay nagu dhaaftay aad u malaysaa insha Allah Ilaahay naga dhigo kuwii yani 10 lawaakhir ka faa'iideysta khayrkeedana wajaha oo yani laylatul qadr waafaqa maanteena insha Allah tan xigta waxaan rabaa inaan ka hadlo halyeeyga islaamka Salaaxudiin al-Ayyubi taariikhdiisa oo kooban mar hore ayaan rabay inaan ka hadlo si ila tahay waxay ahayd u malaynaa dabiyaaqadii ama xitaa dhaxaadkii 2020kii warqad ayaa jirtay oo warqada ku qortay dhowr mawduuc ay ahaayeen oo warqad ku diyaarsaday warqadiina oo iga luntay anigana hore u iloobay hadda waxaan ku soo xasuustay marka xaaladda haatan ka taagan Falastiin ayaa soo xasuusisay marka inta badan dadka qaar hore inay u baqleen laga yaabaa qaarkood xitaa 10 inay ku soo qaateen laakiin insha Allah waa soo koobayna anagoo yani uga faa'iideysanayna xaaladda hadda ka taagan Falastiin iyo wixii aan ka dhihi karno ku soo dhawow muuqaalkeena maanta Salaaxudiin al-Ayyubi waa mid kamid ah halyeeyada ugu awoodda badnaay ugu haweenay oo soo maray taariikhda islaamka waa hogaamiye geesi muslim ahaa noolaana qarnigii 12aad waana qof si weyn ugu qayb qaatay yani xoogsashada diinta islaamka sidoo kalena meel weyn ka galay taariikhda islaamka magaciisa oo dhameystiran waa Yuusuf ibn Ayyub ibn Shaahid ibn Marwan ibn Yacquub wuxuu dhashay sanadka markuu ahaa 1137 wuxuuna ku dhashay magaalada Tikrit ee wadankaasi Ciraaq wuxuuna ahaa Kurdi sidoo kale wuxuu ahaa hogaamiye aad u halgamaya oo islaam ah wuxuuna ahaa asaasihii dawladii Ayyubiyiinta caruurnimadiisa wuxuu ku soo qaatay magaalada Dimashq xilligaas Dimashq waxa ka talin jiray boqor la oran jiray Caadil Nuruddin Maxamed Az-Zanki dhalinyarnimadiisa ayuu wuxuu ku biiray ciidamada boqorkaas kadibna boqorka ayaa waxa uu diray wadankaasi ee Masar ciidankaasi yani Masar loola diray markii uu ku jiray muddo kadib yani waxa dhintay adeerkiisa wuxuuna halkaasina wuxuu ku guursaday yani xaaskii uu ka geeriyooday Nuruddin Az-Zanki isaga ayaana la wareegay booskii adeerkiisa wuxuuna noqday wasiirka dhabta ah ee wadankaasi Masar halkaasna wuxuu ka bilaabay dagaalkii uu la galay ciidankii la oran jiray ama qoladii la oran jiray Saleebiyiinta markaas kadib ayuu aasaasay dawladii loo yaqaanay dawladda al-Ayyubiya ama dawladii Ayyubiyiinta markaas kadib adiga wuxuu aad iyo aad ugu hamin jiray in mar uu dagaal la galo uu ka guuleysto qoradaas loo yaqaanay Saleebiyiinta markii ugu horeysay oo iska hor imaadeen waxay ahayd 25 November sanadka markuu ahaa 1177 markaasi oo laga guuleystay ciidanka muslimiinta kadib markale isku soo laabteen ayuu isaga yani guushii uu ka rabay uu ka gaaray markaas kadib dagaalo badan oo isaga galay oo qayb ka ahaa oo isaga hogaaminayay ayaa jireen sidoo kale wuxuu heshiisiyay Masar iyo Suuriya adiga waxyaabihii uu qabtay intooda ugu badan hadda halkan uga hadli doono yani maadaama aan dhahnay taariikhdiisa waa soo koobaynaa inta dagaal uu ka qayb qaatay dhamaantooda mid uma soo qaadan karno balse waxa intaas ka dambeeyay dagaalo badan ayuu ka qayb qaatay muhiimadda hadda aan rabno inaan uga hadalno waa xureyntii ama yani markii uu xureeyay Qudus ama furashadiisii Qudus wuxuu in badan ku haminayay dadaal badan u soo muujiyay in mar uun dib u xureeyo Qudus oo gacanta ku dhigo ugu dambeyn waxa uu dagaalo badan oo ka soo qayb qaato wuxuu guulo badan muslimiinta u soo hooyaba akhiiran wuxuu go'aansaday inuu xureeyo magaalada Qudus wax badan ayuu u soo halgamay una soo dadaalay sidii magaaladaasi muslimiinta gacanta ugu dhigi lahaayeen una maamuli lahaayeen intii uu dib u xureynta Qudus ku guda jiray hal habeen kuma uusan seexanin firaash wuxuuna mar walba ku dul seexan jiray marba mid kamid ah fardihii uu dagaalka ku gali jiray mar la weydiiyay Salaaxudiin al-Ayyubi sababta uu ugu seexan waayay firaash oo mar walba u seexanayo fardaha dushooda oo lagu jiri waa daashay markaan ee firaash ku seexo wuxuuna ku jawaabay markaasi mar rabo in Allah subxaanahu wa ta'ala ay u muuqato in Salaaxudiin hurdo raaxo leh uu seexday iyadoona wali Qudus gaaladu haysato sanadka markuu ahaa 1187 ayaa Salaaxudiin al-Ayyubi gacanta ku dhigay magaaladii ahayd Qudus waxayna ahayd markaasi markii ugu dambeysay ee si dhab ah loo xureeyay magaalada Qudus 40 sano kadib Salaaxudiin geeridiisa waxa la wareegay qoladii Roomaanka
dowlado badan ayay yacni oo muslimiin ayaa gacanta u gashay oo hogaamin jiray. Ugu dambeyn sanadka markuu ahaa 1996 ilaa ay haatan waxaa hogaaminaya ama gacanta ku haya hogaaminayna ma dhihi karnay ilaa ay waqtigaas waxaa gumaysanaya Yahuuda. Hadda waxaan ugu dhaliyay muuqaalkani inaan ka hadalno waa qadiyada ama xaaladda haatan ka taagan Falastiin. Waa inta mid aanan hore loo arag inta ay Yahuudu gacanta ku haysay ama waddankaasi sidaani u gumaysanaysay midda hadda ay socoto oo kale. In masjid lagu cibaadaysanayo gudaha loo galo, in caruur ha dhihin, dad odayaal ha dhihin, yacni bud lala dhaco, la garaaco, la xabadeeyo, yacni bilaa macno loo laayo. Waxaa hadda ka socdo waa wax aanan iska indha tiri karin. Reer Falastiinna waxay aaminsan yihiin in magaaladan ay iyaga ammaan ku tahay ama yacni difaaceeda iyo xurnimadeedana iyaga ay mas'uul ka yihiin. Xaaladana sidaasi ma ahan. Waa qof waliba oo muslim ah magaaladiisa, qof waliba oo muslim ahna mas'uul ayaa ka saaran si alaale siduu u difaaci karo inuu ku difaaco. Anagana hadda wax kale uma awoodno aanan ka ahayn duco. Waan u ducaynaynaa oo kaliya. Tobankii dambe ee Ramadaan ayaan lagu jiraa. Waxaa laga yaabaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala in ducadeena uu naga ajiibo. Marka wax kale uma hayno aanan duco ahayn. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa in dadkii yacni ehelkaasi in eheladaasi walaaladeena muslimiinta ah dhibaatada ku jira oo intaanoo sana ay dhibaatadani haysato inuu Ilaahay ka dulqaado. Ugu dambeyn muuqaalkeena maanta halkan ayuu ku egyahay. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan aad daawatay. Fadlan ha ilowin muuqaalka inaad like saarto aadna sii share garayso. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.